bismillaah taariikhdu markay ahayd 11kii bishii 11aad 2019 abbaaro 7dii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaal 1 Shucayb Cabdulaahi Maxamed Axmed 25 jir ah ina wiilo Axmed Maxamed ku dhashay Diinsoor 2 Saadaq Cabdijabaar Cumar Xuseen 24 jir ah ina Kaamilo Maxamed ku dhashay Xamar kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab gaar ahaan qaybta fulisa dilalka dhagarta ah ee si qarsoodi ah uga howlgasha magaalada Muqdisho eedaysana Shucayb Cabdulaahi Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu si bareer ah u dilay 1 marxuum Saddexle Xooga Xuseen Macallin Cali Jilicow taariikhdu markay ahayd 28kii bishii 6aad 2017 2 marxuum Gaashaanle Booliis Yuusuf Cabdulaahi Maxamed taariikhdu markay ahayd 9kii bishii 12aad 2017 3 marxuum Laba Xidigle Booliis Cabdulaahi Ibraahim Xasan Gambar taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 5aad 2018 4 marxuum Cabdi Cali Maxamuud taariikhdu markay ahayd 27kii bishii 11aad 2018 eedaysane Saadaq Cabdijabaar Cumar Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum Dable Xooga Maxamed Xasan Ibraahim taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 3aad 2019 degmada Dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 11aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha 10aad 2022 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq